السلام عليكم هدي aad ku cusub tahay channelkan Diyaarama Alcabdi fadlan subscribe saar la soco barnaamijyada wiikiiba hal mar hooyo iyo dhalaan barnaamijkeenu wuxuu ku saabsan yahay xaaladda loo yaqaano babaasiirta oo sidoo kale loo yaqaano guntin waa xididada dabada oo barara iyo malawadka hoose oo la mid ah xididada dhiigaaga babaasiirtu waxay ka soo bixi kartaa gudaha malawadkaaga taasoo loo yaqaano babaasiirta gudaha ama maqaarka hoostiisa ee dabada taasoo loo yaqaano babaasiirta banaanka ku dhawaad 4 qof ee qaangaar ahba 3 ka mid ah ayay saamaysaa babaasiirtu waqti ka waqti babaasiirta waxay leeyihiin sababo dhowr ah haddaba calaamadaha iyo astaamaha babaasiirta badanaa waxay ku xiran tahay noocay babaasiirtu tahay haddaba babaasiirta ayaa u qaybsanta 2 qaybood oo waaweyn labada qaybood ayaa ah mid gudaha ka soo baxda iyo mid banaanka ka soo baxda haddaba babaasiirta banaanku waxay ku hoos jirtaa maqaarka ku xeeran dabada calaamadaha iyo astaamaha waxaa ka mid noqon kara cuncun ku dhaca agaga dabada xanuun ama raaxo la'aan barar ku wareegsan dabada dhiigbax haddaba babaasiirta gudaha waxay ku jiiftaa malawadka caadi ahaan ma arki kartid ama ma dareemi kartid marar dhif ah ayay keeni kartaa raaxo daro laakiin mararkay saxaradu gudbayso waxay sababi kartaa dhiigbax aan xanuun lahayn inta lagu guda jiro dhaqaaqa caloosha amaba saxarada xanuun waxay sababi kartaa babaasiirta guduhu xanuun aad u daran iyo dhiig la'aan barar aad ah iyo jir xanuun qaarka dambe ah xanaaq ama diiqad uu qofku dareemayo haddaba waa maxay sababta keeni karta babaasiirta waxa keeni kara dhowr sababood qaadista culayska joogtada ah hooyada oo uur leh xilliga xaamilada tahay taas waxay sababi kartaa inuu ilmuhu cadaadis ku sameeyo malawadka oo taas halkaana ka dhalan karto calool istaag joogto ah oo soo wajaha qofka shuban xad dhaaf ah amaba majiirasho uu qofku in badan fadhiyo suuliga cunno dufankeedu yar yahay sida ugu wanaagsan ee looga hortagi karo babaasiirta waa sidan waa inaad saxaradaada ka dhigto mid jilicsan si ay si fudud uga gudubto malawadkaaga amaba looga hortago babaasiirta loona yareeyo astaamaha babaasiirta raac tallaabooyinkan cuntooyinka dufanka leh sida maraqa khudrad badan cun markaad sidaas samaysid waxay jilcinaysaa saxaradaada waxay kordhinaysaa ama kaa caawin doontaa inaad ka fogaato culayska keeni kara babaasiirta iyo dhibaatooyinka gaasta cabitaano fara badan cab ilaa 6 koob ilaa 8 koob maalintii oo biyo ah iyo cabitaano kala duwan oon lahayn acid iyo alcohol maalin kasta si ay saxaradaadu u jilicsanaato samee jimicsi firfircooni ah si aad uga hortagto calool istaaga iyo inaad yarayso cadaadiska xididada ku dhici kara iyada oo muddo dheer la fadhiyo amaba aad taagnaato jimicsiga ayaa sidoo kale kaa caawin kara inaad lumiso miisaanka xad dhaafka ah kaas oo sababi kara ama biirin kara khatarta babaasiirta iska ilaali fadhiga dheeriga ah kaas oo kordhin kara cadaadiska xididadaada haddaba waa sida ugu wanaagsan ee lagu daaweyn karo babaasiirta waa inaad isticmaasho khudrad badan isticmaal cuntooyinka dufanka leh waxay ku sahlaysaa inay calooshaadu socoto oo culayska babaasiirtu kaa yaraato isticmaal daawooyinka babaasiirta ay ku jirto hydrocortisone si joogto ah meesha ku maydh biyo diiran hadday tahay babaasiirtaadu dibadda 10 daqiiqo ilaa 5 daqiiqo maalintii 2 jeer ilaa 3 jeer qaado xanuun baabiyaha afka
ee la yiraahdo aspiriinka ama ibuprofen. Mararka qaar waxaa loo samayn karaa qaliin ayaa la samayn karaa hadhayalsan babaasiirta. Waxyaabaha halista ah markay aad sii weynaataba ama aad gabowdidba halista babaasiirta ayaa kordhaysa. Taasi waa sababta taageeraha xididada malawadka iyo dabada ayay daciifin kartaa ku sababi kartaa daciifin.